shirkan jaraa'id oo ay isugu yimaadeen xubno ka mid ah salaadiinta cuqaasha aqooyahanka iyo waxgaradka beesha gabooyaha ayaa waxa uu ku saabsanaa isla markaana ay kaga hadleen sida ay u taageersan yihiin qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana waxa ay sheegeen inay baaq u dirayaan dadweynaha ku dhaqan deegaanka Taleex oo ay u sheegayaan in aan la majara habaabin isla markaana ay dadka walaalahooda reer Soomaaliland wax la qaybsadaan waxa ay xubnahani ku dheeraadeen inay Soomaaliland halkan ku soo gaadhay wada tashi iyo wax wada qabsi isla markaana loo baahan yahay in wax kasta oo tabashaha lagu dhameeyo miiska nabadda waxaana ay ugu baaqeen xubnahaasi in ay ka soo noqdaan xubnaha shirkan jaraa'id qabtay waxa kamid ahaa Boqor Axmed Iimaan Suldaan Iid Cabdillaahi Suldaan Nadiif Xasan Sheekh Maxamed Cabdillaahi Caaqil Shiina Cali Faahiye iyo Caaqil Axmed Cabdi Xasan gabagabadii shirkaasi jaraa'id waxa ka hadlay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dadka la haybsooco Barkad Jamaal Xirsi Khadar Cismaan Guuleed waxaana iyaguna tilmaameen sida ay beeshan uga go'an tahay taageeridda go'aanka iyo qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo go'aansataageeda waxaana ay sheegeen inay yihiin kuwa mar walba u taagan inay difaacaan qarannimadaasi walaalayaal gorgortan ma gelayso maanta go'aansataaga reer Soomaaliland gorgortan ma gelayo waxa aan leenahay maanta inaad ugu baaqdo hal la kala furo Soomaaliland ee ma suura galayso maanta xornimadeeda ku doorsan maayo qabiil xornimadeeda maanta gorgortan gali mayso qabiil ku doorsan mayno waxaanu nahay dad muwaadiniina waxaanu nahay dad reer Soomaaliland waxaanu nahay dad hiil iyo hooba la garab taagan waxaana ay sheegeen in xukuumaddu ay ku taageersan yihiin go'aanka gogosha nabadeed